soo dhawaada saaxiibayaal soonqaad wanaagsan mawlaha inaga aqbalo camalada wanaagsan ee aynu gudanayno bisha Ramadaan oo mar kale iyo maqal kale maanta waxaanu isla wadaagaynaa dhacdadii koobaad ee buugeeni 30 dhacday 13 ku soo dhawaada dhacdadeena maanta dhalashadii Nabi Maxamed habeenkii uu Nabi Maxamed dhashay waxa dhacday mucjisooyin aan hore u dhicin dibna aanu dhici doonin mucjisooyinka waxaynu ka soo qaadanaynaa dhowr kala hubo ee dhiganayaasha taariikhdu dhiteeyeen waxay dhiganayaasha sooyaal ku dhigayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu dhulka soo gaaray uu gacantiisa dhigay isaga oo madaxiisa u taagay dhanka samada habeenkii ma ahayn mid yar waxa sidoo kale dhacay in hooyadii Nabi Maxamed ee Aamina ay ku riyootay iyadoo uu ka soo baxay iftiinkiisa la wada arkay heer uu nal u noqday oo wada iftiimiyay qasriyadii dhulka Shaam haddaba qisada aynu soo koobnay dhalashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bal aynu ka soo qaadana 13 ayaguna kooban aynu ka baranayno in nabiyada la soo raacin jiray mucjisooyin ay adag tahay in ay u dhaceen lana yimaadeen cid aan iyaga ahayn sababtuna waxay ahayd in mar haddii ay dadku kala duwan yihiin oo ay ku jiraan qaar madax adag la tuso in aanu nabigaasi ahayn qof dadka la mid ah ee uu yahay mid inta soo hadhay wax dheer oo arrimo alla wato ay la socdaan uuna yahay qof alla u doortay in uu inta kale fariinta cadaynaysa qaabka ay u noolaanayaan loogu soo dhiibay in iftiinka ay nabiga hooyadii ku riyootay ee ifiyay dhulka Shaam macnihiisu yahay in diinta Islaamku ay saldhiganayso dhulka Shaam waayo waxa sugan in aakhiru zamaanka ay Shaam noqon doonto dhufays Islaam sidoo kalena uu ka soo degi doono Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam in markuu Nabi Maxamed madaxiisa u taagay dhanka samada uu dadka si dadban u tusayay in uu Allaha dhabta yahay kan jira dhanka samada ogaalkiisa iyo maqalkiisana kula socdaadanaha oo dhan ee aanu ahayn waraabow taagida ama sanamyada ay dhoobdhoobeen ee gacan ku rimiska ah markaynu ka nimaadno dhacdada iyo 13 waxayna xasuusay dhacdadani ama uu buugeena xasuusiyay nabi amaankii hadraawi ergadii Furqaan markii uu lahaa nabigii Ilaahow nuurkii Islaamka oo adigoo adduunkiyo ifka wali ka maqan baa lagu sii odoroso ishaarooyin badan baa dadku ka arkeeno ayaamaha Ilaahay qaar baa astaan leh 7 ayaamood isniin baad ka dhalato adduunyada xuskaagii ololaa ka dhacayo ururweyno goortii uu xantaadu bururtaa xidiguhu ifeeno dayaxa ilayskii arradoo dhan gaadho onkadiye hilaaca aragiyo wax maqalkii ashqaraar ku ridayo insigiye jinka farax abshir dhaha la yiriyo inta haata duushiye idil habar dugaagba abaabulay ciyaaro dhirtu oogadaadiyo afartaada geesud ubaxaya caleen bay ku ilaa xidheeno abtirsiimada adiye meeshaad ku ababtaa dadku wada ogaayo aaminatu wahabaa kugu qaaday uurkoo adigoo unkamayo weli soo ifbixinba adoogaa xijaabto nafta laga aroorsho amran hooyadaaba umushii ku dhimato ilaahay xaliimuu igirkaaga dhigayo iyadoo xilkaaga iyo adhaxdeeda saaro iyadaa lafdhabartii kugu qaaday adhaxdoo abuurtaada nebiyow ula jeeda weyn buu ka lahaa ilaah inaguna waxaan leenahay abuurtaada nebiyow ula jeeda weyn buu ka lahaa ilaah hadba u mahadsantihiin intaasina kusoo koobinaa maanta wassalaamu calaykum